ku dhawaaqitaanka waxaan baraarujinaynaa arrimaha soo socda ugu horeyn marka ay ku dhawaaqistu dhamaato howlwadeennada ka socdo warbaahinta waxaa la ogeysiinayaa in howlka dhexdiisa aan waxba lagu duubi karin barxadda maxkamadana aan lagu duubi karin qof inay wareysato rabto oo waxayna duubato rabto bannaankaasi la tegaysaa midda labaad dadka ku sugan howlka dacwadda ee u yimiday in ay qayb ka noqdaan ama dhageystaan ku dhawaaqista maxkamaddu maanta ay sameynayso ee xukunka laga soo saaray galka sumadiisu tahay 27/24/24 waxay maxkamaddu ku baraarujinaysaa in wax falcelin ah in ay sameeyaan ayna maxkamaddu ogoleyn ciddii markii maxkamaddu xukunka ku dhawaaqda la falgasha ee falcelinka samaysa buuq iyo waxyaabo aanan u qalmin maqaamka maxkamadda in maxkamaddu ay la tiigsanayso sharciga tilaabo sharciga waafaqsanna laga qaadayo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جمهورية فدرالك صوماليا محكمة رفعانك قبل كبنادر قابتا واحدة تشيكا ما أنت أو أي تاريخ دو تهي شاني طبانكي بيش الشنات لبدو كون أفري لباتنكا محكمة وككوبان قصورياشا كلاء عبد الوهاب أحمد علي برهان محمد علي يانيغو سعيد علي محمد اسمر كان قدومين هي محكمة كاليانا اوكي هاي لبان محمد محمود فدغان مانتا انو فدينو محكمة وحا كل واقع ساعة حكمك اي كسو سارتي قل دعوديتك نمبركيسو يهي 27/24/24 وحنا قد جوغ فدغان حرلاليها كومتليو دعودان حفيزك حرلاليها قد هذا الميكروفون كاستعمال magacaygu waa Yaxye Maxamuud Saciid wax ku matalaya xafiiska xiraalada guud ee qaranka dacwadan maanta loo fadhiyo maxkamadda maasanta waxa isna goob joog eedeysan Sayid Cali Macalin Daawud eedeysanaha waxaa iyana goob joog oo qaran waa eedeysanaha abukaate cali xalanay ka fadhiiso maxkamaddu markii ay dhageysatay asbaabta rafcaanka ee eedeysanaha iyo jawaab celinta uu ka bixiyay dacwadoogaha ku matalayay dacwadan xafiiska xiraalyaha guud si waafaqsan qodobka 231 ee xeerka habka ciqaabta maxkamaddu haddii ay dib ugu noqotay qoraaladii ay soo gudbiyeen iyo doodii ay soo jeediyeen labada dhinac aragtayna dhammaan dukumeentiyada ku jira galalka maxkamadda gobolka iyo rafcaanka tarastayna cadeymaha dhinacyada waxa uu caddaatay sida soo socota in si loo caddeeyo eedeysanuhu inuu galay falka ku xusan qodobka 434 ee xeerka ciqaabta ay qasab tahay in la sugo si aanu ku jirin shaki maangal tiirarka uu ku taagan yahay qodobka oo sidan soo socota in eedeysanuhu geystay fal 2 inay jirto dhimasho 3 in farka eedeysanuhu geystay uu sababay dhimashada dhibanaha 4 in eedeysanuhu uu qasday dhimashada dhibanaha inaanay wax dooda ka taagnayn in eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud 26 bishii koobaad 2024 sameeyay fal gubista qol kamid guri uu deganaa kuna yaalay degmada Dharkeenley isagoo ku sheegay qiraal uu maxkamadda gobolka ka hor sameeyay 25 bishii labaad 2024 inuu isagu gubay guriga in xafiiska xiraalyaha guud uu maxkamadda u soo bandhigay muuqaal laga dheehday qol kamid guriga falku ka dhacay oo gubtay taas oo cadeyn u falka gubashada qol kamid guriga isla markaana uu waafaqsan yahay qiraalka uu sameeyay eedeysanuhu inaanay doodi ka taagnayn in Luul Cabdicaziis Allah naxariistay ahayd qof nool oo degan magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Dharkeenley una dhexday eedeysana Sayid Cali iyo aabaha dhalay marxuumadana ay isla ogol yihiin in Luul ahayd qof nool ka hor dhacdada keentay geerideeda taas oo si dhab inoogu xaqiijinaysa in marxuumadu ahayd qof nool ka hor dhacdada dhimashada keentay in warqad ku taariikhaysan 2 bishii labaad 2024
kana soo baxday isbitaalka cilmi baarista iyo tababarada muqdisho ee Rajab Tayyip Erdogan ex Digfer lagu cadeeyay in luul geeriyootay labadii bishii labaad 2024 abbaaro 6:50 daqiiqo ee subaxnimo kuna geeriyootay isbitaalka tababarka iyo cilmi baarista ee muqdisho in waraysi ay maxkamaddu la yeelatay dhaqaatiir ta u fidisay gargaarka caafimaad luul Allah u naxariistee oo gacanta ku hayay kiiskeeda ay maxkamadda la wadaageen in luul isbitaalka la keenay taariikhdu markay ahayd 27 bishii koobaad 2024 abbaaro 1 subaxnimo ama 7 saac oo habeenimo iyada oo guban in warbixin tirsigeedu yahay 41 kuna taariikhaysan 28 bishii koobaad 2024 kana soo baxday isbitaalka cilmi baarista iyo tababarada muqdisho ee Rajab Tayyip Erdogan ex Digfer lagu cadeeyay in 90% luul jirkeedu gubtay sababta gubashada keentana ay tahay flame gas in warbixin mid ka mid ah dhaqaatiirta maxkamaddu wareysatay uu sheegay in 90% luul jirkeedu gubtay gubashaduna gaartay lakabka saddexaad ee maqaarka hypodermis isaga oo xusay in 10% badbaaday ay tahay labadooda lugood qaybtooda hoose oo midiiba 4% la xisaabiyo kilkisha midig iyo awrada oo midkiiba 1% la xisaabiyo in warqadda shahaadada dhimashada ee ka soo baxday isbitaalka cilmi baarista iyo tababarada muqdisho ee Rajab Tayyip Erdogan ex Digfer lagu cadeeyay in luul Cabdulaziz Maxamed geeriyootay labadii bishii labaad 2024 abbaaro 6:50 daqiiqo ee subaxnimo sababta geerida keentana ay tahay dhaawac ka dhashay dab keenay gubniin halis ah in waraysi ay maxkamaddu la yeelatay mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalka Digfer kuna takhasusay suuxinta iyo la tacaalida xaaladaha adag ahna mid ka mid ah dhaqaatiirtii gacanta ku hayay xaaladda luul maxkamadda la wadaagay in sababta keentay dhimashada luul ay tahay dab jirkeeda gaaray isagoo raaciyay in marka la eego dabka jirkeeda gaaray rajada badbaadadu ay ahayd mid ka yar 10%. in arrimahan soo xusnay ay si cad u muujinayaan in sababta dhimashada luul ay tahay dabka eedeysanuhu ku qabtay guriga ay ku noolayd in eedeysanuhu qirsan yahay in isaga iyo luul muran dhex maray kadibna ay tiri waxaan gursanayaa nin kale ee fur isaguna go'aansaday inuu gubo alaabtiisa xilliga arrimahani dhacayaan ay ahayd habeen dabeetana baxay soona iibsaday shidaal ku shubay qol ka mid ah guriga ay ku wada noolaayeen isaga iyo luul kadibna jantisiigar ku shiday balse uu diiday in falka gubashada luul uu ku yimid si kas ah isaga oo xusay in iyadu gashay qolka gubtay kadibna uu badbaadiyay in marka la eego muranka dhex maray eedeysanaha iyo luul xilliga muranku dhacay oo ah xilli habeen ah eedeysanuhu inuu baxay soo iibsaday shidaal dabeetana ku shubay mid ka mid ah qolalka guriga ay ku wada noolaayeen kuna dhajiyay jantisiigar ay si aanu shaki ku jirin u muuqanayso in eedeysanuhu falka gubista ah ku fakaray qorsheeyay dabeetana baxay tagay meel shidaal lagu iibiyo soo iibsaday shidaal ku shubay qol ka mid ah meel dad ku nool yihiin kuna dhajiyay jantisiigar in eedeysanaha falkaas marka uu sameynayay miirkiisu joogay ogaayna in dab haddii lagu shido guri dad ku nool yihiin iyada oo waliba la adeegsanayo shidaal oo caadi ahaan siyaadiya gubashada natiijada ka dhalan kartaahi ay tahay in waxyeelo gaari karto dhimasho ay soo gaari karto dadka goobtaasi ku nool in eedeysanuhu uu lahaa gaari ku jiray garaash ku dhow goobta falku ka dhacay sida uu sheegay markii falku dhacayna uu ka baxsaday goobta isagoo adeegsaday gaarigiisa haddii aanu falka si kas ah ugu geysan xaaskiisa si ku talagal ahna aanay
aanay u guban ay soo mariyeen uu ugu jawaabay waxaad wadaan waa been oo naftiina ayaa idin qurxisay iyadoo culimada tafsiirku ay sheegeen in habka nabi yacquub ku gartay in dhiigaasi uu been yahay ay tahay inuu arkay qamiiskii oo dhiig leh laakiin aan jexjexnayn uuna yiri wiilashiisii goormaa waraabuhu caqli yeeshay oo wiilka kala baxay qamiiska isagoo aan dilaacinin iyadoo culimadu arrinkaasi ka daliishadeen in qariinadii dhiiga ay wiilashu daliishadeen uu nabi yacquub calayhi salaam ku buriyey qariino kale oo ka xoog badan oo ah in aan qamiisku jeexnayn taasoo daliil cad ah in qariinadu tahay xujo lana cuskan karo marka arrin laga go'aan gaarayo in aayadaha 26 iyo 27 ee suuratu yuusuf oo allah subxaanahu wa tacaala uu kaga warramay qofkii ka marag furay markii la masabiday nabi yuusuf calayhi salaam uu sheegay in haddii qamiisku uu horay ka dilaacsan yahay uu isagu been sheegayo oo haweenaydu ay run sheegayso haddiise uu gadaal ka dilaacsan yahay ee haweenaydu been sheegayso oo nabi yuusuf calayhi salaam uu run sheegayo taasoo ka dhigan in lagu amray in boqorku uu fiiriyo qariinooyinka ka muuqda qamiiska ee kala cadaynaya in nabi yuusuf calayhi salaam uu haweenayda damcay ama in ay iyadu damacday arrintaas oo jamhuurta fuqahada muslimiintu u daliishadeen in ay cadaynayso xujonimada qariinada iyo inay tahay cadayn la cuskan karo oo garsoorku go'aankiisa ku dhisi karo in xadiiska uu wariyay Bukhari oo tirsigiisu yahay 3962 iyo Muslim oo tirsigiisu yahay 1800 nuxurkiisu ahaa in markii uu sheegtay mid kastoo ka mid ah labadii wiil ee ilma Cafra inuu isagu dilay Abu Jahl nabigu calayhi salaatu wasalaam weydiiyay seeftiinu miyaad masaxdeen inay ku jawaabeen maya ma aanan tirtirin kadibna uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu seefahoodii fiiriyay una yiri kan baa dilay isagiina uu u xukumay furkii laga furtay Abu Jahl arrinkaas fuqahada muslimiintu waxa ay u cuskadeen in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu qariinada wax ku xukumay sidaas darteedna ay garsooraha u bannaan tahay inuu ku go'aan gaaro qariinada hortiisa taalla xukunkiisana uu ku dhiso in xadiis ay soo saareen Abu Daawud oo tirsigiisu yahay 4404 Al-Tirmidhi oo tirsigiisu yahay 1584 Ibn Majah oo tirsigiisu yahay 2541 النسائي أو ترسيغيسو ياهي 1556 ولما بدنا أي صحيحين أو صحابيغا سعد بن معاذ النبي عليه الصلاة والسلام أو قوبجوغ كوغو آميي إن غير بنو قريدة قانقار كودا للايو قانقار نمدا لغو قرتنا صحابدو أي شيغين إن أي رقودا كفرين ينتماه هوسي أو قف كستو تماه هوسله لغو فلينيي حكم كاس دلك taasoo keentay in fuqahadu halkaas ka daliishadeen in saxaabadu cuskatay qariino iyo calaamado qofka ay ka muuqato oo qofka ka muuqda oo sheegaya in uu qaangaar yahay walow aan la hubin in uu gaaray da'dii qaangaarka taasina ay cadayn u tahay in go'aanka lagu dhisi karo qariino maadaama nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuba ay ku go'aan gaarayeen in qowlka laga wariyay Umar iyo qayb kamid ah saxaabada uu ahaa in ay
inay xukumeen in haweeneyda aan la qabin ee guur hore soo martay loo rajmin karo haddii la arko iyada uur leh iyagoona cuskaday qariinada daahirka ah ee muuqata oo ah uurka oo caddayn muuqata u ah in ay sinaysatay maadaama uusan jirin nin qaba oo uurkan u yeeli kara waxaana isla arrintan la qaba imaam maalik iyo madhabkiisa in ijmaaca ay soo guuriyeen fuqahada qaarkood sida ibnu farxuun kitaabkiisa تفسيرة الحكام إيو قرطبي كتاب كيسا الجامع لأحكام القرآن إيو جساس كتاب كيسا أحكام القرآن إيو غير كود با أي شيئين إن أي إجماعته أي إن وحلقو حكومي كرو لقونا قوان غاري كرو قادن كرو قرينة إن آيات بقول تضباطا إساقالات سورة البقرة الله سبحانه وتعالى كل شيء إن كو عقلك أصاحبك قصاصت أتهي نولل إن آيات أفرتن إيشانات سورة المائدة والله سبحانه وتعالى كحسي إن الله جديي نفتي نفدشة إن لو دلو هذا محكمة يدو عسكتي سببها أي كور كحسي وحا يدي حكم كي محكمة قبلك إلا قصو ساري قالك سمدي سوحايد بقول أفرتن تضبو لباتن أفرني لباتن وحا يكون شيء السنة سيد علي معلن داود دنبيga ku xusan qodobka 434 waxayna ku xukuntay dambiile sayid cali macalin daawud dil toogasha xukunkan cid aan ku qancin waxa uga furan cabasho waafaqsan sharciga xukunkan waxa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 15kii bishii shanaad 2024 waxa reeban in falcelin ay ka sameeyaan dadka howlka ku sugan qof kasta xafadiisa ha aado fadhigii maxkamadana halkaas ayuu noogu xiran wixii saxaafada banaanka waraysa u aadaano saxaafada banaanka ana qabto wareys